الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وحنا هاي بيل كميدا بيلها Soomaalida ee wadanka Kenya ku dhaqan. waxaana beesha countiga Wajeer laga soo bilaabo ilaa badda lagu geeyo xuduudka labadiisa dhinac dhanka Soomaaliya iyo dhanka Kenya ba beesha ku dhaqan baan nahay. waxaan martigelinaa oo culeyskiisa aan haynaa qaxootigii Soomaalida ahaa ee walaalaheen ahaa ee 19 soo qaxay ee la hilmaamay inay hal beel ahaayeen. madaxda hadda joogta ay hilmaameen hal beel inay ahaayeen. qaxootigaas deegaanka uu degan yahay dadka asal ahaan ku nool ee ku dhaqan ee wadanka markii la kala sheegto meesha dhaqan u leh yaa nahay. dadkii nala noolaa ee soo qaxay Soomaaliya waxay noqdeen ehelkeena. Soomaali bay noqdeen 1, Muslim bay noqdeen 1, Soomaali bay noqdeen 2, Daarood bay noqdeen 3, intiba anagoo la wadaagno yay nala soo degeen. way ku noolaadeen, way ku dhaleen, way ka dhoofeen, way ka tacliimeen. wadankooda ee ay degan yihiin yuu noqday. dhibka ku qabsadana kan annagaba wadanka nagu haysto oo kala un weeyaan. madaxweynayaashii hore ee madaxweynaheennan ka horreeyey waxaan ka xusuustaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kale. qaxootiga wuu soo booqday isagoo xil hayo oo madaxweynihii xilka hayay ee Soomaaliya yuu xeryaha qaxootiga imaaday. shacabku salaamay, dhibaatadoodu weydiiyey, daraasuu sameeyey. ilaahay idimkii haddii alla isoo celiyo meeshan waad ka tagaysaan buu ku yidhi. maalin dhan buu la hargalay, ka murugooday oo ka xanuunsaday. madaxweynow adaa beddeshay adiga oo dadka meesha xeryaha ku jira la heeb ah oo ogsoon tahay waxa soo qaxay Daarood keliya inay ahaayeen ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud beddeshay oo alla ku nasiibay. si dhib yar baa xilka lagugu wareejiyey. waxaan filaynay dadkaas walaalahana ah ee qeyaha qaxootiga joogo ee badankood habeenkii kali qabaysto ee maalintii meel qarinayso oo ku qabaysan karaan aan haysanin ee qorraxda haday kululaatay meel ay ka hirgalaan oo badan aan lahayn oo hadduu xilliyada qabowga sida bisha 6 iyo 7 la gaaro meel ay ka galaan aan lahayn. maantaan islahayn idiilaan helnay in adeerkood baa madaxweyne noqday way noqonayaan baan islahayn. waqtigaadi baa dhamaaday, rajadii waa la celin oo Soomaaliya ku noqonay way la dhamaatay. waxaan marka leenahay madaxweynow dalkaas ay qaxootiga degan yihiin ee Wajeer iyo badda inta u dhaxaysay khayraadkii dhulka hoostiisa aha intan waaxiga qaxootiga jiiraanka la dhulka hoostiisa iyo dushiisa ba khayraad kuma dambeeyo. dadka tirada badan oo dhirtana jarayo biyaha carrada ka badan dhulka hoostiisa looga soo saarayo baana uu sabab ah. si kale yeeli karaan ma laha, sidaa waa inay sameeyaan ku noolaadaan. waxaan leenahay ma hayna meel dambe oo qaxooti la dhigo ma hayno. waxaan leenahay oo ku talinaynaa in dalka la dejiyo. wuxuu afka Ingiriisiga ku mahmaahaa what belongs to everybody belongs to nobody. xuduudka Soomaaliya ee la isku hayay iyo Kenya ninna kama wadadisana. ninka maxkamadda adduunka geeyay heeg ninka geeyay ninna kama wadadisana. ninkii baa kula haystaa, xilka kula haystaa, kuwa ka horeeyeen baa kula haystaa. dhulka dhig, walaalaha ha ku imaadeen, la hadal, heshiiya, qaab nabada ku heshiiya. hadday xasrad dhacdo waxaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamkaba u cadaynaynaa qaxooti meel la geeyo ma jiro. waxa daar dhaweer tiray Kenya baan xiriirka u gooyay oo yaad xiriir u goon Soomaali meel ay qaxooti ku eemba ma lehe. matii ugu darneed ee caloosha Soomaaliya ay taalay baad xiriir u goon. qofka islaamka markuu dhimanayo ee tawxiidka loo qaadayo intuu xataa kari waayo laa ilaaha illa allah lagu dul akhrinayo hadduu hadloo yiraahdo wasaayada waa sharci. laakiin marka hadduu hadloo yiraahdo gabadhii 11 iyo 30 sano aan qabay 3 bilood ka horaan furay muctabar maaha, lama dhageysanayo. marka adoo 40 maalmood ku hartay yaa tiri xiriirka Kenya waan gooy. arrintaa arrin la qaadan karo ma aha. waxa asaas oo kale la mid nin laba nin baa magaaladan gubeen hadda ka hor oo walaala oo beeshaad u dhalatay ka soo jeedaan oo Cabdi Madoob iyo Cabdi Dhankan la kala yiraahdo yaa gaaris gubeen diga ka dhigeen. 4 kun oo gurina waa la gubay, kun ruux wax ka badanna waa la dilay.
kun ruux yaana dhihina boqolaal baa la dilay kun ruux ay ku dhimatay waa gala haddii laba nin oo shacaba ay dhibaatada geysteen adoo madaxweyne ah wixii khalad ama aad ka soo samayso waxa wax ka daran baa ka iman nin dagoodiyo aad fidma ay u ahaa oo dadka isku diri jiray yaa markii dambe xajiyey wuxuu tagay xajku nin kala soo hadlay wuxuu yidhi waryaa xajkaan joogay maxaan kugu soo duceeyaa saaxiibkii ahaa waa kay ninka ilaahdi waa hebel maadaa xaj aaday haa arducaad ii soo ducayso ku tanaadi maayo nabiguuna ha igu dirin uu yidhi walaalow macaanow tala fiican oo lagaa dhaxlay soomaali kuma dhaqmaysa sida ii muuqatee gaaladan aan la dhaqanay ha nagu dirin warkayga intaa weeyaan Soomaaliya iyo Kenya waa laba dawladood oo Afrikaanu walaale ah oo wada dhashay weeye 91 Soomaaliya way burburtay hadday burburtay dalkii hoyga u noqday ay ku soo qaxday wuxuu ahaa dalka Kenya sababahay u soo aaday dalka Kenya waxaa ka mid ahaa dad badan oo Soomaali ah yaa Kenya ku nool oo degan dawladda Kenya dawladaha ammaanka aad iyo aad ugu qiimo badan bay ku jirtaa sida aawadeed Soomaaliya dadkeedii Bambaasa ilaa Nairobi ilaa qaxootiyada meel kasta way galeen waxaan moodaynaa 30 sano ayay Soomaaliya burbursan tahay inay dawlad cadaalad ka dhalanayso oo dalkii uu degayo saasaan anaga filayna waxaa la yaab ila noqotay oo aniga bariyaha ma la yaabanaa madaxweynahan hadda dalka gacanta ku haya Soomaaliya markii xilku uu qabanayay Soomaali meel ay joogto dhanbo aad baad moodaysaa in lagu hambaliyay hambaliyadii Soomaaliya oo hambaliyeysay maanta in ay meel ay joogtoba ay haddana ay ka hadlayso oo leedahay carada nabad lagu dabaalo waa mid la yaab leh weey waxaan u sheegayaa madaxweynaha Soomaaliya dalka inuu dejiyo dalka Soomaaliya colaad ma baahno qaxootigan meel kale oo qaxooti la geynaya ma jirto ummadii Soomaaliyeed kulliba dacbay jiiftaa intii gargaar iyo dhaqaal u geysan lahaa inuu dib kale u geysto arinta ayada waa arin adag waxaan kula talinaynaa madaxweynaha Soomaaliya hadda madaxda ka inuu dalka nabad ku dabaalo inuu nabad meel kasta oo la gashaba inuu nabad dalka ku dabaalo dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya kalma ahaan karto laba dawladood jiraan weeye waa laba dawladood walaal wada dhasheen laba dawladood xiriir xumaan dhaxmari karta maaha Kenya waa hooyadii Afrika weeye haddana geeska Afrika weeye madaxweynaha Soomaaliya waxaan u sheegaynaa haddaan nahay dad Soomaali haddaan nahay waxaan u sheegaynaa meel aan joognabo in uu nabad ku dadaalo dalka dejiyo wabillahi tawfiiq waxa waaye Soomaaliya dagaal uma baahna kursi la isku dhajiyeen ma bahaysataba wax la isku dhajiya oo maanta lagu dagaalama waxa ay keentay waad garanaysiin waxa waaye aniga waxaan la hadlay madaxweynaha Soomaaliya maalintii lagu dooranayay waxaan maqlaayay farmaajo ii geeya erisaasa ma maqlay maantana waxa waaye farmaajo ka carara wadanka ina taariikh xun ku dhaafta adna taariikh xumo aad isku rida arinta iyada ka fiirsa arinta iyada waxaan ku leenahay ka fiirsa midka kala waxa la yiri nin walaalkiis la coloobay maxaa la jiray walaal aan buu noqdaa walaalkiis in la coloobay walaal aan buu noqdaa farmaajo walaal aan baa tahay walaalaha baa la colowday ma arki kartid waa ku ayaan dara dhinacaada bidax iyo midigba wuu banaan yahay taasna waa taa iyada waxaan ku leenahay dib u noqo dib u fikir Soomaali la heshii Soomaali waxay isku ogashahay sabe wadankana deji inta ay nabad waa sidii nabad dadka meesha isugu imaaday maxaa horta laga fiiriyaa maxaa la isugu imaaday warka aan wadno oo meesha la isugu imaaday muxuu yahay baa horta la fiiriyaa warka aan wadno oo meesha isugu imaanay waa laba arrimood dadka ku nool dadka xukunka haya Soomaaliya hadda
inaan gaarsiino gobolka waqooyi bari inuusan diyaar u ahayn qaxooti dambe inuu qabto inuusan diyaar u ahayn qaxooti dambe inuu qabto maxaa naga keenay waxaa naga keenay ififaalo dagaal baa ka muuqdaa dalkii qaxooti dambe inuu dhici doono ayaa noo muuqataa waddankii ififaalo dagaal baa ka muuqdaa beledweynaha ciidamo lagu daldalahayaa muqdishoha ciidamadii dawladdii hore soo galeen oo ka dagaalamay rabaan gedaa ciidamo joogaan maaragtay galmudug baa ciidamo lagu daldalahayaa ififaalo colaad baa dalkii ka muuqdaa alaab xirxirashaa la galay dadkii beecmisarka ahaa meeshay naftooda iyo maalkooda oola carar lahaayeen dalkii keliya isku hadlaynayeen maalkooda inay oola cararaan rabeen adigaa yidhi xiriirkan u gooy walbahaar baa marka ummaddii soo wajahay middaas ayaan ka digaynaa ninka dalka hadda xukuma inuu ka digtoonaado oo awaaqib xumo asaga iyo annagaba nagu saabsan uusan kaga tegin cabdiqaasim baa laga soo bilaabay cabdullaahi yuusuf axmed baa ku xigay sheekh shariif baa ku xigay xasan sheekh maxamuud baa ku xigay adiga lambarka shanaad baa tahay si fiican bay isugu dhiibeen qoriga nabad baa lagu soo kala galbaday inaad ku dhegto adiga hadda sida aabbahaadoo ka dhaxday aad ku dhegto meesha ma suuroomaysa hadda inaan lagu rabin baa kuu muuqataaye annaga oo ehelku aan hana ceebaynin adigana naftaada ha dullaynin iska dhiib kursiga haddii boyntigaagii fooga ah aad waysay 4.5 waaye boyntigaagii haddaad lumisay waxaad dad kula tartanta ma haysida meesha iska dhiiba isaga soo tag midda labaad ee aan ku yeegay waxaa weeye taa waxaa noo keenaysa areen aan ka qabnay in qaxooti dambe u dhaca midda labaad aan ku daray waxaa weeye beryahan waxaan arkahayaa kenya dhul naga rabtaa soomaaliya dhul laga goosan rabaa xuduuddaa lasoo gudbihayaa kana sidana annagaa u dagaalanay kenya inaan ka go'onno muddo 20 30 50 sano laga joogo dadkan meesha fadhi dadka u dagaalamo weeye kenya inaan ka go'onno waxaan u arkaynaa hadda inaan qaldaneen beriga iyada yaan maanta arkay hataa madaxweynaha magaalada ku nool yahay hadda waxaa u arkaa inaan beriga qaldaneen kenya dhul soomaaliya ay leedahay ma rabto mana ujeedo maalinta la yidhaahdo ciidamada afrika ka jooga kenya ha baxaana qeybahaasay ka mid tahay gaar uguma haraysa iyada intii ciidamada hal nin uu ka joogana waa joogi kenya meesha maslaxada weeye maslaxaan u aragnaa taas iyadaan midda saddexaad waxaa weeye facebooka idaacadaha waxaan ku arkaya niman dibadda ka imaaday oo beeshan jiiraanka aan ahay ee reegada ah oo dawladda arrinkeeda ka hadlaya wasiirka arrimaha la gudmeen oo le gobolka annagii baa nabad ka rabnaa annaga col baana lagu abuuray kan weeye jiraan baan nahay inaan arrimaha iska kaalmaysano xuduuddii la wanaajiyo waa hadal wanaagsan waxba ma inkirayn annaga kaas isaga mar horaana laga reebay arrintooda intaa markuu inaadeerkood dhulka gubaay inay taa ka fikiraan oo dhulkan iyaga ay degan yihiin oo ilmahooda ay ku dhasheen xaasaskooda ay degan inaan col laga kicinin mar hore inay ka hadlaan baa la rabay xiriirka dawladda kenya gobol soomaali leedahay oo yaa ku dheerarsan oo idinkana jiraan idinla ah ood kala hadli kartaan nabadgelyadiin iyo ammaankiin iyo see laga yeela bay foos hadday timaado waxaan u malaynaa hortaajira wax ku waayey wiilwaal baa wax ku waayey wax kale iskaba dhaaf hortaajira wax ku waayey waxbaa isku daalinay wax hadalkayga kusoo gabagabaynaya madaxweynow muddaxeleedkaada 20 dhowrka maalmood ay ka dhiman tahayoo waddankii nabadgelyu kaa sugahayaa ismaqal buu kaa sugahayaa ixtiraamkii lagu doortay buu kaa sugahayaa nidaam kala wareegis oo fiican buu kaa sugayaa haddii hadda aad tiraahda inaad shaatiga siibatay oo aad dagaal diyaar u tahay baad u bareertataa maxay annagana kuguma taageerayna dadka meesha degana kuguma taageerayaan nin cunug 3 jir ah wuxuusan aqbalaynin adigoo 50 jir ah 60 jir ah oo dawladda ka soo shaqeeyay inaad ku hamisaa maba ahayn waxaan u arkaa aqli yar baa kugu jira dib isugu noqo salaamu calaykum رحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وحانا هاي بيل كميدا بيلها سوماليدا ودن ككينيا كودغان وحانا هاي بيشا كاونتيغا وجير لغسو بلابو إلى بدا لغو جيو حدود كلابدي سدنا دنك سوماليا iyo dhanka Kenya ba beesha ku dhaqan baan nahay waxaan martigelinaa oo culayskiisa aan haynaa qaxootigii Soomaalida ahaa ee walaalaheen ahaa ee 19 soo qaxay ee la hilmaamay inay hal beel ahaayeen madaxda hadda joogta ay hilmaameen hal beel inay ahaayeen qaxootigaas deegaanka uu degan yahay dadka asal ahaan ku nool ee ku dhaqan ee waddanka markii la kala sheegto meesha dhaqan u leh yaa nahay
dadkii nala noolaa ee soo qaxay Soomaaliya waxay noqdeen ehelkeena Soomaali bay noqdeen kow muslim bay noqdeen kow Soomaali bay noqdeen laba daarood bay noqdeen saddex intiba anagoo la wadaagno yay nala soo degeen way ku noolaadeen way ku dhaleen way ka dhoofeen way ka tacliimeen wadankooda ee ay degan yihiin yuu noqday dhibka ku qabsadana kan annagaba wadanka nagu haysto oo kala un weeyaan madaxweynayaashii hore ee madaxweynaheennan ka horreeyey waxaan ka xusuustaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kale qaxootiga wuu soo booqday isagoo xil hayo oo madaxweynihii xilka hayay ee Soomaaliya yuu xeryaha qaxootiga imaaday shacabku salaamay dhibaatadoodu weydiiyey daraasuu sameeyey ilaahay idimkii haddii alla isoo celiyo meeshan waad ka tegaysaan buu ku yidhi maalin dhan buu la hargalay ka murugooday oo ka xanuunsaday madaxweynow adaa beddeshay adiga oo dadka meesha xeryaha ku jira la heeb ah oo ogsoon tahay waxa soo qaxay daarood keliya inay ahaayeen ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud beddeshay oo alla kuu nasiibay si dhib yar baa xilka lagugu wareejiyey waxaan filaynay dadkaas walaalahana ah ee xeryaha qaxootiga joogo ee badankood habeenkii keli qabaysto ee maalintii meel qarinayso oo ay ku qabaysan karaan aan haysanin ee qorraxda hadday kululaatay meel ay ka hirgalaan oo badan aan lahayn oo hadduu xilliyada qabowga sida bisha 6 iyo 7 la gaaro meel ay ka galaan aan lahayn maantaan islahayn idiilaan helnay in adeerkood baa madaxweyne noqday way noqonayaan baan islahayn waqtigaadii baa dhammaaday rajadii waa la celin oo Soomaaliya ku noqonay way la dhamaatay waxaan marka leenahay madaxweynow dalkaas ay qaxootiga degan yihiin ee wajeer iyo badda inta u dhaxaysay khayraadkii dhulka hoostiisa aha intanna waaxiga qaxootiga jiiraanka la dhulka hoostiisa iyo dushiisaba khayraad kuma dambeeyo dadka tirada badan oo dhirtana jarayo biyaha carrada ka badan dhulka hoostiisa looga soo saarayo baana uu sabab ah si kale yeeli karaan ma laha sidaa waa inay sameeyaan ku noolaadaan waxaan leenahay ma hayna meel dambe oo qaxooti la dhigo ma hayno waxaan leenahay oo ku talinaynaa in dalka la dejiyo wuxuu afka ingiriisiga ku mahmaahaa what belongs to everybody belongs to nobody xuduudka Soomaaliya ee la isku hayay iyo Kenya ninna kama wadanisana ninka maxkamadda adduunka geeyay heeg ninka geeyay ninna kama wadanisana ninkii baa kula haystaa xilka kula haystaa kuwa ka horeeyeen baa kula haystaa dhulka dhig walaalaha ha ku imaadeen la hadal heshiiya qaab nabada ku heshiiya hadday xasrad dhacdo waxaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamkaba u cadaynaynaa qaxooti meel la geeyo ma jiro waxa daar dhaweer tiray Kenya baan xiriirka u gooyay oo yaad xiriir u goon Soomaali meel ay qaxooti ku aymba ma lehe matii ugu darneed ee caloosha Soomaaliya ay taalay baad xiriir u goon qofka islaamka markuu dhimanayo ee tawxiidka loo qaadayo war intuu xataa kari waayo laa ilaaha illa allah lagu dul akhrinayo hadduu hadloo yiraahdo wasaayada waa sharci laakiin marka hadduu hadloo yiraahdo gabadhii 11 iyo dhashay 30 sano aan qaybay 3 bilood ka horaan furay muctabar maaha lama dhageysanayo adoo 40 maalmood ku hartay yaa tiri xiriirka Kenya waan gooy arrinta arrin la qaadan karo ma aha waxa asaas oo kale la mid nin laba nin baa magaalada gubeen hadda ka hor oo walaala oo beeshaad u dhalatay ka soo jeedaan oo Cabdi Madoob iyo Cabdi Dhankeed la kala yiraahdo yaa gaaris gubeen diga ka dhigeen 4 kuna gurina waa la gubay kun ruux wax ka badan waa la dilay kun ruux yaana dhihina boqolaal baa la dilay kun ruux ay ku dhimatay waa gala haddii laba nin oo shacab ay dhibaatada geysteen adoo madaxweyne wixii khalad ama aad ka soo samayso waxa wax ka daran baa ka iman nin dagoodiyo aad fidma ay u ahaa oo dadka isku diri jiray yaa markii dambe xajiyay wuxuu tagay xajku nin kala soo hadlay wuxuu yiri wariya xajkan joogay maxaan kugu soo duceeyaa saaxiibkii ah waa kay ninka ilaahay waa hebel maadaa xajaade ha arducaad ii soo duceyso ku tanaadi maayo nabigu nahay ugu dirin uu yiri walaalow macaanow tala fiican oo laga dhaxlay Soomaali kuma dhaqmaysa sida ii muuqatee gaaladan aan la dhaqanay ha nagu dirin warkayga intaa weeyaan Soomaaliya iyo Kenya waa laba dawladood oo Afrikaan walaale oo wada dhashay weeye 91 Soomaaliya way burburtay hadday burburtay dalkii hoyga u noqday ay ku soo qaxday wuxuu ahaa dalka Kenya sababahay u soo aaday dalka Kenya waxaa kamid ahaa
dad badan oo Soomaali ah yaa Kenya ku nool oo degan dawladda Kenya dawladaha ammaanka aad iyo aad ugu qiimo badan bay ku jirtaa sida aawadeed Soomaaliya dadkeedii Bambaasa ilaa Nairobi ilaa qaxootiyada meel kasta way galeen waxaan moodaynaa 30 sano ayay Soomaaliya burbursan tahay inay dawlad cadaalad ka dhalanayso oo dalkii uu degahayo saasaan anaga filayna waxaa la yaab ila noqotay oo aniga bariyaha ma amal la yaabanaa madaxweynahan hadda dalka gacanta ku haya Soomaaliya markii xilku uu qabanayay Soomaaliya meel ay joogto dhanbo aad baad moodaysaa in lagu hambaliyay hambaliyadii Soomaaliya oo hambaliyeysay maanta in ay meel ay joogtoba ay haddana ay ka hadlayso oo leedahay carar nabad lagu dabaalo waa mid la yaab leh weey waxaan u sheegayaa madaxweynaha Soomaaliya dalka inuu dejiyo dalka Soomaaliya colaad ma baahno qaxootigan meel kale qaxooti la geynaya ma jirto ummadii Soomaaliyeed kulliba dacbay jiiftaa intii gargaar iyo dhaqaal u geysan lahaa inuu dib kale u geysto arinta ayada waa arin adag waxaan kula talinaynaa madaxweynaha Soomaaliya hadda madaxda ka inuu dalka nabad ku dabaalo inuu nabad meel kasta oo la gashaba inuu nabad dalka ku dabaalo dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya kalma ahaan karto laba dawladood jiraan weeye waa laba dawladood walaal wada dhasheen laba dawladood xiriir xumaan dhaxmari karta maaha Kenya waa hooyadii Afrika weeye haddana geeska Afrika weeye madaxweynaha Soomaaliya waxaan u sheegaynaa haddaan nahay dad Soomaali haddaan nahay waxaan u sheegaynaa meel aan joognabo in uu nabad ku dadaalo dalka dejiyo wabillahi tawfiq waxa waaye Soomaaliya dagaal uma baahna kursi la isku dhajiyeen ma bahaysataba wax la isku dhajiya oo maanta lagu dagaalama waxa ay keentay waad garanaysiin waxa waaye aniga waxaan la hadlay madaxweynaha Soomaaliya maalintii lagu dooranayay waxaan maqlaayay farmaajo ii geeya erisaasa ma maqlay maantana waxa waaye farmaajo ka carara wadanka ina taariikh xun ku dhaafta adna taariikh xumo aad isku ridda arinta iyada ka fiirsa waxaan ku leenahay ka fiirsa midka kala waxa la yiri nin walaalkiis la coloobay maxaa la jiray walaal aan buu noqdaa walaalkiis in la coloobay walaal aan buu noqdaa farmaajo walaal aan baa tahay walaalaha baa la colowday ma arki kartid waa ku ayaan dara dhinacaada bidax iyo midigba wuu banaan yahay taas waa taa iyada waxaan ku leenahay dib u noqo dib u fikir Soomaali la heshii Soomaali waxay isku ogashahay sabe wadankana deji inta ya nabad waa sidii nabad dadka meesha isugu imaaday maxaa horta laga fiiriyaa maxaa la isugu imaaday warka aan wadno oo meesha la isugu imaaday muxuu yahay baa horta la fiiriyaa warka aan wadno oo meesha isugu imaanay waa laba arimood dadka ku nool dadka xukunka haya Soomaaliya hadda inaan gaarsiino gobolka waqooyi bari inuusan diyaar u ahayn qaxooti dambe inuu qabto maxaa naga keenay ifafaala dagaal baa ka muuqdaa dalkii qaxooti dambe inuu dhici doono ayaa noo muuqataa wadankii ifafaala dagaal baa ka muuqdaa beledweynaha ciidamo lagu daldalahayaa muqdisho ciidamadii dawladda hore soo galeen oo ka dagaalamay rabaan gedaa ciidamo joogaan maartay galmudug baa ciidamo lagu daldalahayaa ifafaala colaad baa dalkii ka muuqdaa alaab xirxirashaa la galay dadkii bacmisarka ahaa meesha ay naftooda iyo maalkooda oo la carar lahaayeen dalkii kaliya isku haleynayeen maalkooda inay oo la cararaan rabeen adiga yiri xiriirkan u gooy walbahaar baa marka ummadii soo wajahay midaas ayaan ka digaynaa ninka dalka hadda xukuma inuu ka digtoonaado
oo awaaqib xumo asaga iyo annaga oo nagu saabsan oo sal kaga tegin cabdiqaasim baa laga soo bilaabay cabdullaahi yuusuf axmed baa ku xigay sheekh shariif baa ku xigay xasan sheekh maxamuud baa ku xigay adiga lambarka shanaad baa tahay si fiican bay isugu dhiibeen qoriga nabad baa lagu soo kala galbaday inaad ku dhegto adiga hadda si aabahaadoo ka dhaxday aad ku dhegto meesha ma suuroomaysa hadda inaan lagu rabin baa kuu muuqataaye annaga oo ehelku aan hana ceebaynin adigana naftaada ha dullaynin iska dhiib kursiga haddii bointigaaga fooga ah aad waysay 4.5 waaye bointigaaga haddaad lumisay waxaad dad kula tartanta ma haysida meesha iska dhiiba isaga soo tag midda labaad ee aan ku yeegay waxaa weeye taa waxaa noo keenaysa areen aan ka qabnay in qaxooti dambe u dhaca midda labaad aan ku daray waxaa weeye beryahan waxaan arkahayaa kenya dhul naga rabtaa soomaaliya dhul laga goosan rabaa xuduuddaa lasoo gudbihayaa kana sidana annagaa u dagaalanay kenya inaan ka go'no muddo 20 30 50 sano laga joogo dadkan meesha fadhi dadka u dagaalamo weeye kenya inaan ka go'no waxaan u arkaynaa hadda inaan qaldaneen beriga iyada maanta arka hataa madaxweynaha magaalada ku nool yahay hadda waxaan u arkaa inaan beriga qaldaneen kenya dhul soomaaliya ay leedahay ma rabto mana ujeedo maalinta la yiraahdo ciidamada afrika ka jooga kenya ha baxaana qeybahaas ay ka mid tahay gaar ugu maharaysa iyada intii ciidamada hal nin uu ka joogana waa joogi kenya meesha maslaxada weeye maslaxaan u aragnaa taas iyadaan midda saddexaad waxaa weeye facebooka idaacadaha waxaan ku arkaya niman dibadda ka imaaday oo beeshan jiiraanka aan ahay ee reegada ah oo dowladda arrinkeeda ka hadlaya wasiirka arrimaha la gudmeen oo le gobolka annagii baa nabad ka rabnaa annaga col baana lagu abuuray kan weeye jiraan baan nahay inaan arrimaha iska kaalmaysano xuduuddii la wanaajiyo waa hadal wanaagsan waxba ma inkirayn annaga kaas isaga mar horaana laga reebay arrintooda intaa markuu in adeerkood dhulku gubaay inay taa ka fikiraan oo dhulkan iyaga ay degan yihiin oo ilmahooda ay ku dhasheen xaasaskooda ay degan inaan col laga kicinin mar hore inay ka hadlaan baa la rabay mar hore inay ka hadlaan baa la rabay xiriirka dowladda kenya gobol soomaali leedahay oo yaa ku dheerarsan oo idinkana jiiraan idinla ah ood kala hadli kartaan nabadgelyadiin iyo ammaankiin iyo see laga yeelaa bay foos hadday timaado waxaan u malaynaa hortaajira wax ku waayey wiilwaal baa wax ku waayey wax kale iskaba dhaaf hortaajira wax ku waayey waxbaa isku daalinay wax hadalkayga kusoo gabagabaynaya madaxweynow muddaxeleedkaada 20 dhowrka maalmood ay ka dhiman tahayoo waddankii nabadgelyo kaa sugahayaa ismaqal buu kaa sugahayaa ixtiraamkii lagu doortay buu kaa sugahayaa nidaam kala wareegis oo fiican buu kaa sugahayaa haddii hadda aad tiraahda inaad shaatiga siibatay oo aad dagaal diyaar u tahay baad u bareertataa maxay annagana kuguma taageerayna dadka meesha degana kuguma taageerayaan nin cunug 3 jir ah wuxuusan aqbalaynin adigoo 50 jir ah 60 jir ah oo dowladda ka soo shaqeeyay inaad ku hamisaa maba ahayn waxaan u arkaa aqli yar baa kugu jira dib isugu noqo salaamu calaykum